لله وإنا إليه راجعون ودعدا نحدين له halkan waa cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa mudashan maalmooda waxa taala raxmo yar oo si kadiisa ugu gubatay magaalada Hargeysa dhammaan jirkeeduna uu wada gubtay gubniinka waxa u raaca waxa ay sidaa uur 8 bilooda raxmo yar waxa ay ka soo jeedaa qoys tan yar ah hooyadeed Ashraafiya Khalifa waa gabadh Oromo oo ka soo jeeda dalka Itoobiya muddo 20 sano ugu dambeeyayna waxay ku nooleed magaalada Hargeysa iyadoo duruufo adag ay soo wajahday mana haysato cid ku garab istaagta ama ka caawisa qarashka dhaqaale ee ku baxaya inanteedan gubatay Ridwaan Maxamed Cagayare waa wiil dhalinyaro oo la socday xaaladda hooyo Ashraafiya Khalifa waxaana uu ka warbixinayaa dhibaatooyinka soo maray hooyadan gabadhan agteeda taagan waa Ashraafiya waa hooyada dhashay Raxma oo muddo 5 cisho ka hor ku gubatay magaalada Hargeysa runtii dhibaato badan ayay qabtaa gubashada waxa u raaca inanta yar Raxma inay ahayd in yaro uur leh waxa isku raacaya marka uur iyo gubasho xalay toole waxay cadeeyeen dhakhtaradu in ilmihii caloosheeda ku jirayna uu dhintay gabadhani cid ehela iyo cid caawinaysa oo nidaamkan bulshada uu abaabulanaya in la iscaawiyo magaalada kuma laha laakiin muddadii 20 sano ugu dambeeyay waxay nolol nooleed magaalada waxay naga codsanaysaa inaynu soo caawino haddii aanay ehel ku lahayn dalka Ilaahay iyo rasuulkiisa muuminiinta ayaa u hela anu makaanigu Ashraafiya ina yaroo ku dhalay Raxmo oo iga gubatay waa urbaleed waa ka waxaan doonay qof ii caawiyo haddaba aynu ka qayb qaadano samata bixinta inantan yar ee ku sugan geeri iyo nolol Ilaahay ka sokow inaga ayaynu uga baahan tahay inaan garab istaagno oo wixii dhaqaalaha aynu ugu shubno taleefanada shaashadayda ka muuqda inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waa dhacda naxdin leh halkan waa cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa mudashan maalmooda waxa taala raxmo yar oo si kadiisa ugu gubatay magaalada Hargeysa dhammaan jirkeeduna uu wada gubtay gubniinka waxa u raaca waxa ay sidaa uur 8 bilooda raxmo yar waxa ay ka soo jeedaa qoys tan yar ah hooyadeed Ashraafiya Khalifa waa gabadh Oromo oo ka soo jeeda dalka Itoobiya muddo 20 sano ugu dambeeyayna waxay ku nooleed magaalada Hargeysa iyadoo duruufo adag ay soo wajahday mana haysato cid ku garab istaagta ama ka caawisa qarashka dhaqaale ee ku baxaya inanteedan gubatay Ridwaan Maxamed Cagayare waa wiil dhalinyaro oo la socday xaaladda hooyo Ashraafiya Khalifa waxaana uu ka warbixinayaa dhibaatooyinka soo maray hooyadan gabadhan agteeda taagan waa Ashraafiya waa hooyada dhashay Raxma oo muddo 5 cisho ka hor ku gubatay magaalada Hargeysa runtii dhibaato badan ayay qabtaa gubashada waxa u raaca inanta yar Raxma inay ahayd in yaro uur leh waxa isku raacaya marka uur iyo gubasho xalay toole waxay cadeeyeen dhakhtaradu in ilmihii caloosheeda ku jirayna uu dhintay gabadhani cid ehela iyo cid caawinaysa oo nidaamkan bulshada uu abaabulanaya in la iscaawiyo magaalada kuma laha laakiin muddadii 20 sano ugu dambeeyay waxay nolol nooleed magaalada waxay naga codsanaysaa inaynu soo caawino haddii aanay ehel ku lahayn dalka Ilaahay iyo rasuulkiisa muuminiinta ayaa u hela anu makaanigu Ashraafiya ina yaroo ku dhalay Raxmo oo iga gubatay waa urbaleed waa ka waxaan doonay qof ii caawiyo haddaba aynu ka qayb qaadano samata bixinta inantan yar ee ku sugan geeri iyo nolol Ilaahay ka sokow inaga ayaynu uga baahan tahay inaan garab istaagno oo wixii dhaqaalaha aynu ugu shubno taleefanada shaashadayda ka muuqda inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waa dhacda naxdin leh halkan waa cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa mudashan maalmooda waxa taala raxmo yar oo si kadiisa ugu gubatay magaalada Hargeysa dhammaan jirkeeduna uu wada gubtay
gubniinka waxa u raaca waxa ay sidaa uur 8 bilooda. raxmo yar waxa ay ka soo jeedaa qoys danyar ah. hooyadeed ashraafiya khaliifa waa gabadh Oromo oo ka soo jeeda dalka Itoobiya. muddo 20 sano ugu dambeeyayna waxay ku nooleed magaalada Hargeysa iyadoo duruufo adag ay soo wajahday, mana haysato cid ku garab istaagta ama ka caawisa qarashka dhaqaale ee ku baxaya inanteedan gubatay. Ridwaan Maxamed Cagayare waa wiil dhalinyaro oo la socday xaaladda hooyo Ashraafiya Khaliifa, waxaana uu ka warbixinayaa dhibaatooyinka soo maray hooyadan. gabadhan agteeda taagan waa Ashraafiya, waa hooyada dhashay Raxma oo muddo 5 cisho ka hor ku gubatay magaalada Hargeysa. runtii dhibaato badan ayay qabtaa. gubashada waxa u raaca inanta yar ee Raxma inay ahayd inay yaro uur leh. waxa isku raacaya marka uur iyo gubasho. xalay toole waxay cadeeyeen dhakhtaradu in ilmihii caloosheeda ku jirayna uu dhintay. gabadhani cid ehela iyo cid caawinaysa oo nidaamkan bulshada uu abaabulanaya in la iscaawiyo magaalada kuma laha. laakiin muddadii 20 sano ugu dambeeyay waxaynu la nooleed magaalada. waxay naga codsanaysaa inaynu soo caawino haddii aanay ehel ku lahayn dalka Ilaahay rasuulkiisa muuminiinta ayaa u hela. anigu Ashraafiya ina yar anigu dhalay Raxmo oo iga gubatay waa urbaleed. waa ka waxaan doonay qof ii caawiyo. haddaba aynu ka qayb qaadano samata bixinta inantan yar ee ku sugan geeri iyo nolol. ilaahay ka sokow innaga ayaynuga baahan tahay inaan garab istaagno oo wixii dhaqaala aynu ugu shubno taleefanada shaashadayda ka muuqda. inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. waa dhacdo naxdin leh. halkan waa cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa. muddo 5 maalmooda waxaa taala Raxmo yar oo si kadiisa ugu gubatay magaalada Hargeysa, dhammaan jidhkeeduna uu wada gubtay. gubniinka waxa u raaca waxa ay sidaa uur 8 bilooda. Raxmo yar waxa ay ka soo jeedaa qoys danyar ah. hooyadeed Ashraafiya Khaliifa waa gabadh Oromo oo ka soo jeeda dalka Itoobiya. muddo 20 sano ugu dambeeyayna waxay ku nooleed magaalada Hargeysa iyadoo duruufo adag ay soo wajahday, mana haysato cid ku garab istaagta ama ka caawisa qarashka dhaqaale ee ku baxaya inanteedan gubatay. Ridwaan Maxamed Cagayare waa wiil dhalinyaro oo la socday xaaladda hooyo Ashraafiya Khaliifa, waxaana uu ka warbixinayaa dhibaatooyinka soo maray hooyadan. gabadhan agteeda taagan waa Ashraafiya, waa hooyada dhashay Raxma oo muddo 5 cisho ka hor ku gubatay magaalada Hargeysa. runtii dhibaato badan ayay qabtaa. gubashada waxa u raaca inanta yar ee Raxma inay ahayd inay yaro uur leh. waxa isku raacaya marka uur iyo gubasho. xalay toole waxay cadeeyeen dhakhtaradu in ilmihii caloosheeda ku jirayna uu dhintay. gabadhani cid ehela iyo cid caawinaysa oo nidaamkan bulshada uu abaabulanaya in la iscaawiyo magaalada kuma laha. laakiin muddadii 20 sano ugu dambeeyay waxaynu la nooleed magaalada. waxay naga codsanaysaa inaynu soo caawino haddii aanay ehel ku lahayn dalka Ilaahay rasuulkiisa muuminiinta ayaa u hela. anigu Ashraafiya ina yar anigu dhalay Raxmo oo iga gubatay waa urbaleed. waa ka waxaan doonay qof ii caawiyo. haddaba aynu ka qayb qaadano samata bixinta inantan yar ee ku sugan geeri iyo nolol. ilaahay ka sokow innaga ayaynuga baahan tahay inaan garab istaagno oo wixii dhaqaala aynu ugu shubno taleefanada shaashadayda ka muuqda. inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. waa dhacdo naxdin leh. halkan waa cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa. muddo 5 maalmooda waxaa taala Raxmo yar oo si kadiisa ugu gubatay magaalada Hargeysa, dhammaan jidhkeeduna uu wada gubtay. gubniinka waxa u raaca waxa ay sidaa uur 8 bilooda. Raxmo yar waxa ay ka soo jeedaa qoys danyar ah. hooyadeed Ashraafiya Khaliifa waa gabadh Oromo oo ka soo jeeda dalka Itoobiya. muddo 20 sano ugu dambeeyayna
waxay ku nooleed magaalada Hargeysa iyadoo duruufo adag ay soo wajahday mana haysato cid ku garab istaagta ama ka caawisa qarashka dhaqaale ee ku baxaya inanteedan gubatay. Ridwaan Maxamed Cagayare waa wiil dhalinyaro oo la socday xaaladda hooyo Ashraafiya Khaliifa waxaana uu ka warbixinayaa dhibaatooyinka soo maray hooyadan. gabadhan agteeda taagan waa Ashraafiya waa hooyada dhashay Raxma oo muddo 5 cisho ka hor ku gubatay magaalada Hargeysa. runtii dhibaato badan ayay qabtaa. gubashada waxa uu raaca inanta yar Raxma inay ahayd inay yaro uur leh waxa isku raacaya marka uur iyo gubasho. xalay toole waxay cadeeyeen dhakhtaradu in ilmihii caloosheeda ku jirayna uu dhintay. gabadhani cid ehela iyo cid caawinaysa oo nidaamkan bulshada uu abaabulanaya in la iscaawiyo magaalada kuma laha. laakiin muddadii 20 sano ugu dambeeyay waxaynu la nooleed magaalada. waxay naga codsanaysaa inaynu soo caawino haddii aanay ehel ku lahayn dalka Ilaahay rasuulkiisa muuminiinta ayaa u hela. anuma kaanigu Ashraafiya ina yaro anigu dhalay Raxma oo iga gubatay waa urbaleed waa ka waxaan doonay qof ii caawiyo. haddaba aynu ka qayb qaadano samata bixinta inantan yar ee ku sugan geeri iyo nolol. Ilaahay ka sokow innaga ayaynuga baahan tahay inaan garab istaagno oo wixii dhaqaala aynu ugu shubno taleefanada shaashadayda ka muuqda. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waa dhacdo naxdin leh. halkan waa cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa. muddo 5 maalmood waxaa taala Raxma yar oo si kadiisa ugu gubatay magaalada Hargeysa. dhammaan jidhkeeduna uu wada gubtay. gubniinka waxa uu raaca waxa ay sidaa uur 8 bilood. Raxma yar waxa ay ka soo jeedaa qoys tan yar ah. hooyadeed Ashraafiya Khaliifa waa gabadh Oromo oo ka soo jeeda dalka Itoobiya. muddo 20 sano ugu dambeeyayna waxay ku nooleed magaalada Hargeysa iyadoo duruufo adag ay soo wajahday mana haysato cid ku garab istaagta ama ka caawisa qarashka dhaqaale ee ku baxaya inanteedan gubatay. Ridwaan Maxamed Cagayare waa wiil dhalinyaro oo la socday xaaladda hooyo Ashraafiya Khaliifa waxaana uu ka warbixinayaa dhibaatooyinka soo maray hooyadan. gabadhan agteeda taagan waa Ashraafiya waa hooyada dhashay Raxma oo muddo 5 cisho ka hor ku gubatay magaalada Hargeysa. runtii dhibaato badan ayay qabtaa. gubashada waxa uu raaca inanta yar Raxma inay ahayd inay yaro uur leh waxa isku raacaya marka uur iyo gubasho. xalay toole waxay cadeeyeen dhakhtaradu in ilmihii caloosheeda ku jirayna uu dhintay. gabadhani cid ehela iyo cid caawinaysa oo nidaamkan bulshada uu abaabulanaya in la iscaawiyo magaalada kuma laha. laakiin muddadii 20 sano ugu dambeeyay waxaynu la nooleed magaalada. waxay naga codsanaysaa inaynu soo caawino haddii aanay ehel ku lahayn dalka Ilaahay rasuulkiisa muuminiinta ayaa u hela. anuma kaanigu Ashraafiya ina yaro anigu dhalay Raxma oo iga gubatay waa urbaleed waa ka waxaan doonay qof ii caawiyo. haddaba aynu ka qayb qaadano samata bixinta inantan yar ee ku sugan geeri iyo nolol. Ilaahay ka sokow innaga ayaynuga baahan tahay inaan garab istaagno oo wixii dhaqaala aynu ugu shubno taleefanada shaashadayda ka muuqda.